matayo arnataha matayo anata mailaw jacaylod rogan maayo onila bin maayo ayro weeran matayo ilen aamusi maayo ergageesi madiide matayo arnataha matayo anata mailaw jacaylod rogan maayo onila bin maayo ayro weeran matayo ilen aamusi maayo ergageesi madiide ilahtiisu ma oosho calaf layskama ooto ubax dayr ma qarsoomo godka layskuma aayo ilahtiisu ma oosho calaf layskama ooto ubax dayr ma qarsoomo godka laysuma aayo ilka laysma gargaaro abar layskama baaje nabsihayga amaahan axdigeena dhexyeeliyo ha iloobin aqoonte السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال إيوه دقيستيال با ميل والبا عاد كداونيسان برنامج كان كسو دوادا وبرنامج كله وانوغا هادليدو حالة حنونكا كورونا فيروس كا إيوه مقالة سنكلاود إن مدعبا وحانو كهالليدي برنامج كا أما raadiyaha Soomaalida ee magaalada St Cloud iyo TV-ga waxaan uga hadlaynay xanuunka coronavirus-ka iyo siyaabaha looga hortagi karo iyo macluumaadka la xiriira xanuunkaasi hadaba sida ay dad badan maanta kaliya ay ku soo baraarugeen kadib markii ay ku arkeen jaraa'idka weyn ee New York Times oo ka soo baxa wadanka Mareykanka oo lagu qoray in magaalada St Cloud ay tahay meelaha ugu badan oo hadda xanuunka coronavirus-ka oo ugu kordhayo inay dad badan arintaasi ku soo jeedisay aragtidooda ama hadda ay iska weydiiyeen St Cloud meesha ku taalo cid ku nool iyo sida ay wax u jiraan hasaahata laakiin in dhaweydba barnaamijyadeeda arrimahan waan uga hadlaynay marka ugu horeysa waxaan rabaa mar kale inaan ku soo dhaweeyo Hani Jacobson oo iyadu ah nurses kana shaqeysa xarunta caafimaadka ama center care u shaqeysa si gaarana ugala shaqeysa bulshada Soomaalida arrimaha wacyigelinta iyo ku xiritaanka caafimaadka sidoo kale barnaamijkan waxa kale noogu marti ah ama barnaamijkan nagala qayb qaadan doono Kaahin Adam oo isaguna ah dhakhtar ku takhasusay cilmiga maskaxda barnaamijkan aan in muddo ah ku marti qaadeynay isagoo ka hadlaya arrimaha caafimaadka dhimirka xagga maskaxda iyo saameynta xilligan adag oo dad ku sameyn karo mar labaad labadiinaba ku soo dhawaada St Cloud Somali Radio iyo St Cloud Somali TV barnaamijkan gaarka su'aasha ugu horeysa waxaan rabaa in hadii ilaahay idmo Hani aan ku bilaabo jaraa'idka weyn ee New York Times ayaa waxa lagu qoray in St Cloud dabcan ay tahay meesha hadda ugu sare u kacayo xanuunka coronavirus-ka article-kaasna sidaas oo kale waxa soo qaatay jaraa'idka localka ah ee St Cloud Times oo in dhaweydba arrimahan wax ka qorayay la yaabniya kugu noqotay in wadanka Mareykanka journalka ama adduunka ugu weyn in magaaladeena ah magaalo yar beejka ugu horeysa aad ku aragtid kusoo Hani Ahmed aad u bantahay sida nagu soo dhaweysay live-kaaga caawa marka runtii ani markaan arkay in New York Times lagu soo qoray ama hadda media-hayaasha waxaan ka arkoona lambaradeenii oo kor u baxay wax la yaab leh ilama ahaan ama surprise ilama ahaan sababtaas oo ah waan ogeyn dadkii ilaa March dad baa jirnaa laakiin sababtaan u arkayna lambaradeenii inay badanayaan waxa weeyaan baaritaankii baa la kordhiyay
markii hore dadka lama wada baaraynin habkii dadka lagu baari lahaa ayaa nagu yaraa maadaama hadda qof kasta la baarayo la yaab dadka yuu la noqon inuu lambaradeenii badanayo waxaa laga yaabaa maalinba maalinta kasii dambeysa inuu sii bato sababtaas oo ahna waxa weeyaan baaritaankii oo dadka loo baneeyay hadda waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay su-aalahayaga iyo barnaamijkayga caawa sidaas oo kale intaanan u gelin dhaktar kaahin in dhaweyd waxaad la gelayseen shirar gaar ah qaybo ka mid ah ama qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida ee ku dhaqan magaalada St Cloud maxaad nala wadaagi kartaa waxyaalaha ugu badan oo ay dadka ku weydiinayeen ama cabashadooda ama ay ahayd waxyaalaha saameynta ku sameynayay bulshada magaalada St Cloud markii aad dhageysatay goobaha shirarka aad ka qayb gashay weliba dhinaca teleconferencega ah maadaama aan shir live aan la geli karin hadda axmed aad baad u mahadsan tahay inaad aniyahani caawa halkan nagu marti qaado therapist baan ahay marka insha allah therapist inaad igu yeedhaa fiican marka waxaan ahaa muddo badanba waxa aan aniyahani ka shaqaynaynay sidii mujtamaca soomaaliyeed ee magaalada degan aan uga caawin lahayn sidii wacyigelin aan u samayn lahayn xanuunka ku saabsan marka labadii habeen ee ugu dambeeyey shirar baa jiray saad sheegtay teleconferencea oo dadka mataqaana magaalada degan oo isku yimaadeen marka aniga hani iyo huda daa'uud oo ka socota public health ayaa saddexdeedu ka qayb su-aalaha la weydiinayay waxa ugu badnaa su-aalo la xiriira isolationka iyo qofku muddadu isxarayn karo waxyaabuu u baahan yahay muddada uu shaqada ka maqnaan karo iyo shaqooyinkii oo kule dadkii soomaalida shaqooyinkii soo gala markaad 3 cisho ama 4 cisho gudihiina joogtaan kusoo laabtay iyagoo dadkii soomaalidii weli mataqaana xanuunkii qaba oo calaamadii xanuunka weli ay ka muuqdaan kale waxaa jira dad badan oo Soomaali oo weli aanan laga qaadin testiga aan laga qaadin oo weli iyaga laftigooda mataqaana calaamadii xanuunka muujinaya laakiin weli wax cad oo hayaan oo mataqaana sheegayeen xanuunkii hayo ayna jirin marka taasaa jahwareer badan mataqaana bulshada ku abuurtay kale dadkii markay wacaan dhakhtaradii iyo mataqaana goobihii caafimaadka inta badan mataqaana dad cadaana telefoonadii ka qabanaya marka gruubka Soomaalida hadda isku tagay magaaladan oo hani iyo huda ay qaybta caafimaadka hormood ka yihiin ayaa waxay isku dayeen in dad qof Soomaaliya oo nurse ama qof Soomaaliya oo mataqaana community health worker in mataqaana dhakhtarka la dhigo ama goobaha caafimaadka si ay Soomaalidu u wacdo oo mataqaana Soomaalidu ay helaan ma aragtay qof luqadoodii ku hadlaya oo dhaqankoodii fahmayo caawin kara waayahay waxaa rabaa hani inaad weydiiyo dadka qaarkood aqoon badan uma laha laga yaabaa magaalada St Cloud maxaa sababay ama numberkan cirka isku shareeray xagee lagu tuhumayaa in uu ka imanayo gaar ahaan goobaha shaqooyinka horta wallahi runtii haddii la sheego markii hore dadka lagu dhahay nacam guryihiina jooga ha soo bixin Soomaalida dadka way dhageysteen guryahoodii wuu joogeen laakiin dhibaatada waxaa keenay warehouse badan ayaa furnaa meeshan hilibka ayaa furnaa weli oo dee waxaa la dhahay waa essential workers meesha hilibka waa la garta waa essential worker laakiin warehouse kale oo magaalada ka dhex furan ayaa jira dadkii xataa guriga joogaya oo sharcigii raacayay iskama ilaalin karaan dadkii la degnaa oo warehouse-yadan ama meeshan hilibka ka shaqaynaya marka dadkii baa meelaha ka soo qaaday marka community-goodii bay u soo celiyeen haddana maadaama Soomaalidii dhan isla wada deganahay qoysi waaweyn aan nahay oo gurigii ugu yaraan 5 ilaa 6 qof ama ka badan nahay hal apartment ku deganahay viruska inuu sii faafo way u fududaatay marka sababta oo anaga esaas noogu fiday waxyaalahaas oo kala ka mid ah laakiin waxaan leeyahay dadka badankood sharciga way raaceen gurigooda way joogeen laakiin sidee iskaga hadii dadkii shaqadii weli aadayaan si iskaga celiyaan ayay keeni waayeen taasna waa nasiib daro waayahay dadka qaarkood aanan aqoonin magaalada St Cloud ee gobolkan Minnesota bulsho badan ayaa ku dhaqan oo Soomaali ah marka la fiiriyo magaalo yar oo wadankan Mareykanka kamid ah oo
maxaan ku rahdaa oo bulsho intaa la eg ay ku dhaqan yihiin oo minority ah oo ka badan waxaa la yidhahdaa magaalada St Cloud ma jirto wax yar bal guud ahaan waxaad nooga warantaa bal taariikhda dadka iyo cadad ahaan inta lagu qiyaaso dadka Soomaalida ee magaalada degan waxaan u malaynayaa xogaa codka iyo muuqaalkaagana way kala yara dambeeyaan bal waa arkaynaa saan u xallin karna taasna wax yar bal bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaaladan maxaa lagu qiyaasaa goobahay si u badan yihiin inay ka shaqeeyaan intaanan ka dib ugu noqon wallahi aniga horta lambarada si fiican uma hayo laakiin kulleyba Soomaalida badankood waxaan ka shaqeynaa dee meelahan warhaasyadan FDC ama Coleman ama meeshan aan dhahna Boostam, Genio, Cold Spring ku taalo meeshan kale Pilgrim la dhaho meelahaas aan u badannahay inaan ka shaqeyno meelahaas oo dhanna waa lagu sheegay cudurkii dadkii ka shaqeynayay ayaa soo noqday oo familiyaashoodii iyo dadkii deriskoodii iyo waxaas dhan u keeneen maysa ogeen oo ay fahmeen xanuunkii inuu hayo maadaama intii hore oo dhan la isbaarin xanuunkan ilaa bishii 3aad uu ku jiray communitygeen hadda baa la ogaanayaa sababtaasna waxa weeyaan baaritaanka la kordhiyay waaya marka waxaad leedahay sababta hadda numberkan degdega cirka iskugu shareeray baaritaanka marar badan baan barnaamijyada aan kugu marti qaaday markii hore waxaad lahayd waxaa jirta in aanan baaritaanka uusan available u ahayn ama uusan heli karaynin dadka kale laakiin hadda baaritaankii ayaa la kordhiyay taasa marka waxay sababtay dad badan oo ka shaqeynaya warshadaha u badan in laga helo xanuunkan oo arintaas way meesha numberka ka imanaya صح hadda baaritaankii awalkii hore waxaa loo furay dadkii meesha hilibka ka shaqeynayay bas uun hadday calaamado isku arkaan iyo dee dadkii aada u xanuunsado isbitaalka la dhigo laakiin hadda wuxuu bilaabay qof kasta oo calaamadaha isku arka in la baarayo marka dadka badankooda waxay u maleynayaan inaanan virus magaalada ku jirin ilaa iyo wiigii ugu dambeeyay taasi waa been dadku uu ku jiray magaaladeena ilaa bishii 3aad laakiin hadda dad badan la baarayaa waxay u ekaanaysaa lambarkeena inuu badan yahay anigu waxaabay iga dhaadhacsan inta la baaray oo la sheegay in ka badan inay jiran tahay oo la baarin oo laakiin hadda ka bogsaday maadaama xanuunka ilaa bishii 3aad magaalada ku jiray markii hore baaritaanka ayaa yaraa dadka dhanna uma fidsaneen okay waaya baaritaanka ayaa sida ay hani noo sheegtay markii hore diyaar u ahayn ama ayaan heli karin dhammaan bulshada oo idil laakiin hadda baaritaankii ayaa la badiyey oo qof walba waxa uu heli karaa baaritaanka in laga qaado barnaamijkan haddii ilaahay su-aalaha waxaanu weydiin doonaa marna kaahin marna hani dadka barta St Cloud Somali Radio ama St Cloud Somali TV ka daawanaya ama page-kayga haddii aad su-aal qabtaan insha Allah numberkaygana waxaan idinku soo qori doonaa shaashada si aad barnaamijkan nagala qayb qaadataan oo aad u soo wici kartaan wixii su-aalaha dadka Soomaalida ah ama dadka wadankan marka la fiiriyo qowmiyadaha ay ka soo jeedaan waxaanu ka mid nahay qowmiyadaha laga tirada badan yahay ama loo yaqaano minority-ga ama dadka midabada ah waxaan rabaa waxaan su-aasha weydiinayaa kaahin maxaa ugu wacan in dadka xanuunkan u dhimanaya ay yihiin sideedaba dadka loo yaqaano minority-ga ama lagada tirada badan yahay soo dhaw Ahmed ha marka la eego Maraykan kaliya maaha wadamada reer galbeedka oo dhan waxa ugu badan dadka dhimanaya dadka minority-ga ama madowga ama Isbaanishka ama dadka ajnabiga Ingiriiska oo kale dad badan oo madow ama Hindiya iyo Carab muslimiin ku dhimatay marka waxyaabo badan ayaa sababay arintaas oo ay kamid tahay mataqaanaa discrimination-ka ka jira healthcare system-ka inta badan hay'adaha caafimaadka ama rugaha caafimaadka inta badan dadka ajnabiga mataqaanaa discrimination baa lagu sameeyaa cusriyad baa lagu sameeyaa oo mataqaanaa meelo badan bay ka dhacday in dadkii shaqaalaha ee dhakhtarada ka shaqeynayay iyo dadkii mataqaanaa ajnabiga ahaa ee wadankan ama qaxooti ha noqdeen ama dad mataqaanaa waa u soo haajiro mataqaanaa immigrant ha noqdaan inay mataqaanaa isfahmi waayeen dadkii caafimaadka rugaha caafimaad ka shaqeynayay
luqadda awgeed meelo badan oo mataqaanaa dhakhtarra ah oo ku yaala waddamadan reer galbeedkana aynay jirin dad ama culturekii fahmaya dhaqankii iyo luqaddii fahmaya oo dadka u adeegi kara taasi waa mid talabaad dadka inta badan ajanabiga weliba qaxootiga u badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin aad u liita waa dad waddanka ku cusub marka inta badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyinka hooseeya ee sida warehouse-yadoo kale hadda waynu aragnaa mushkiladda magaaladeena ka jirta in dadka intooda badan ay kasoo qaadeen xanuunkan warehouse-yada marka dadka ajanabiga inta badan waxay ka shaqeeyaan dukaanada iyo warehouse-yada iyo meelaha dadku ay ku badan yihiin ee halistooda ama jaaniska cudurkan lagu qaadi karaa uu ku badan yahay taas waa talabaadta saddexaad inta badan weliba khaasatan soomaalida galbeedka usoo guurtay waddamada reer galbeedka waxaa hadda kusoo batay xanuunada macaanka iyo dhiikarka iyo wadna xanuunka xanuunkana inta badan wuxuu dilayaa dadka wadna xanuunka iyo macaanka iyo dhiikarka leh ayuu aad u dilaya aad u laynayaa marka soomaalidana hadda xanuunkaas la sheegay daraasaad badan oo la sameeyey markay galbeedka usoo guureen waddamadan yurub xanuunadaasi aad bay ugu bateen ta kale ta afraad waxa weeye dadkan inta badan ajanabiga ama ha noqoto soomaalida ama isbaanishka faamiliye badan baynu leenahay oo mataqaanaa inta badan faamiliyaan ka deganahay guryaha aad u badan meelo gaaran waynu wada deganahay marka hadduu hal qof soo qaado waxaa laga yaabaa halkaa qof inuu qaadsiiyo dad badan sababta dad isku xidhan oo isdhexgala ayaynu nahay marka inta badan mushkiladaha iyo mushkiladooyin badan oo mataqaanaa ayaa sababay oo ama kuwa dhaqaale ah ama kuwa siyaasadeed ah ama kuwa bulsheedba ah waaya dib aan ugu noqdo xani gobolkan hadda aan joogno iyo magaaladeedaba guud ahaan manala wadaagi kartaa nambaradii ugu dambeeyey weli lama hubaa la leeyahay dadka magaaladan xaqiiqda nambarkana waxaa la tuhmayaa in uu aad uga badan yahay inta xataa hadda la ogaaday ee laga qaylinayo maxaa nambarada nala wadaagi kartaa degmadeenan hadda Strenis County iyo magaaladeenaba waayahay waxaan u malaynayaa codka ayaa kaa xiran wax yar codka kaa xiran okay ku sax wasaaradda caafimaadka ee stateka Minnesota pagekooda waxaa la update gareeyaa maalin kasta saacadda markay tahay 4 p.m. marka nambaradii ugu dambeeyay state ahaan waxaan nahay 6228 hadda Stearns County-na loo eegana waxaan nahay 531 marka lambaradeenna hadda xaggaasay marayaan laakiin inta qof ay xanuunsanayso ayaa ka badan inta qof ee la baareen waayahay 531 waa number aad u badan marka la yiraahdo Strenis County bulshada aanu ka soo jeedno ee Soomaalida ah ayaa mahan inkastoo marka aanu media aanu ka hadlayno sida raadiyahan oo kale aanan bulshada aanan la wadaagi karin waxyaalaha aan la hubin bulshadeena waxaa la leeyahay magaalada St Cloud waxay ka mid tahay bulshooyinka ugu badan oo xanuunkan hadda uu aad u saameeyay si gaar ah iyagu ma loo ogyahay ama mise daatada noocaas oo kale ah lama bixiyo warbixinta noocaas oo kale ah hadda warbixinta noocaas oo kale diyaar fiican ma haysano because weli dadkiisa looma sii kala gogoynin haddaan nahay county moogtahay hadhow waxa soo bixi doonaa laakiin xanuunkan dadka isku si uu u saameynayaa laakiin annaga sababtan uu ay u egtahay inaan uga badannahay dadka kale waxa weeyaan sidaan u noolnahay qoysas waaweyn baan leenahay sidaan hadaaya u sheegay bildinaan degannahay oo deriskeena haddana dadka Soomaalida waa dad siduu keena daaya sheegay waan israaraacnaa ride baan isa siinaa waan isku nimaadnaa waan sticker garanaa dad waxaan nahay la dhaho communal marka dad sidaa iskugu depend gareeya markii virus lagu daro qabadsiintii way ka fududahay sidii dadka kale oo dee isku tagtageen oo qof kasta independent kale yahay oo dhaqankooda naga duwan yahay marka sababtaas ugu egtahay anaga inaan kaga badannahay laakiin isku sibuu dadka u saameynayaa laakiin anaga waxaa laga yaabaa inuu dhaqso isku qabadsiino maadaama isku meel wada degannahay waayahay hani adigoo raalli ah muddo badan baad adigu kaahin hudda
barnaamijkan iyo idaacaddaba aad ka hadlayseen aadna uga digayseen bulshada magaalada St Cloud taxadar badan inay sameeyaan qayladhaan baa iga soo gaaraysa ama naga soo gaaraysa bulshada Soomaalida ee magaalada St Cloud oo ay ka mid tahay dad badan oo xanuunka qaba in ay bulshada dhex socdaan oo maas ayan xiranaynin is ilaalinaynin maxaa qaldan maxaa sababay fariibihii badnaa oo inkastoo dad badan oo shaqeeya habeenkii laga yaabo Janice inay heleen raadi ay ku dhageysteen maxaa isleedahay maxaa sababay sidoo kale su'aashaasna maadaama psychology ay la xiriirto bulshada waa weydiinayaa kaahin maxay idinla tahay arrintaas sababay inay iska dhaga tiraan fariimaha caafimaad كائن كجواب laba dhinac way noqon kartaa horta inta badan aniga hani waan wacnaa dadka Soomaalida maalmo dhaweydna cuntaan u qaybinaynay marka inta badan waxaad moodaa in dadka Soomaalidu ka warqabaan oo ma aragtay ay si fiican uga dheregsan yihiin xanuunkan wuxuu yahay fahansan yihiin ayna taxadirayaan bay u badan tahay laakiin ta kale waxa jirta arrin ma aragtay anay waxaan u malaynay arrinta in la xiriirdo mataqaana dadka Soomaalida mushkiladihii soo maray iyo dhibaatooyinkii soo maray iyo traumada ku soo dhacday in la xiriiraan u malaynay arrin in mataqaana ayna u dhega nugleyn oo leeyihiin mataqaana waxaan igu dhacay maaha mataqaana saameyn aniga iguma yeelanayo dad badan oo xataa waxa jira xanuunku hayo oo dadka u sheegay inuu qufac ku xumaaday ama hargab ku xumaaday uu yahay ee aanu hayn ma aragtay xanuunkani aanu haynin marka wali bulshada waxa ku jira argagax wali denial bay ku jiraan qaarkood ma aragtay in xanuunkani uuna wali aanu Soomaalida saameyn weyn ku sameeynin waxaan u maleynayaa hadda nambarada cusub ee soo baxay hadda markay arkaan inay fahmi doonaan dhibaatada uu leeyahay laakiin dadka bulshada inteeda badan way taxadirayaan la cruise baan joogay weekend gudaheegoon cunto geynay dadka intooda badan afkay xidhnaayeen aad bay isku ilaalinayeen laakiin shakhsiyaad baa jira oo ma aragtay kulliday bulsho kastaba shakhsiyaad aanan amarka raacin bulsho kasta way ku jiraan marka shakhsiyaad baa jira ma aragtay bulshada kamida oo aanu hoggaansamaynin sharciyada iyo qaanuunka kuwaasina waxaan rajaynayaa hadda ma aragtay markay nambarada arkanay nambaraday kordheen waxaan rajaynayaa in ay fahmi doonaan dhibaatada uu leeyahay iyo saameynta uu dadka Soomaalida ku yeelan doono sababtoo haddii nambarada ugu badan ay Soomaali noqdaan waxa laga yaabaa xataa dadka cadaanka la deganahay inay si gaar ah inoo fiiriyaan baa laga yaabaa arrintan mushkilad weyn xataa Soomaali ahaan nagu keento ayaa laga yaabaa waayahay waa arrin dabcan magaaladeena hadalka hadda taabatay dhinaca siyaasadda bulshada Soomaalida New York Times kaasaba kamid ah jaraa'idada wax ka qoray hadday tahay cunsuriyad aanu ka cabanayno hadday tahay cadaadis macnaheedu bulshada saaran hadday tahay ilbaxnimo xumo oo waxa kamid ahayd oo jaraa'idada lagu qoray qaarkood xagga driver lesson-ka darawalnimada baabuurta inay bulshada magaalada maadaama qaxooti badan uu ku cusub yahay inay ku wanaagsaneen marka waa dareensanahay inay keeni karto su'aalo fara badan labada dhinacba in arrimahan la iska weydiin doono waxaan rabaa inaan hani dib ugu noqdo waxaa jira dad badan oo aniga naftigayga soo wacay dhinaca raadiyaha oo aan nambarkaaga soo siiyey aadna waxaan kaaga mahadcelinayaa yani sida aan daalitaan ku jirin ee aad u caawisid bulshada Soomaalida ee ku soo waca dadka ku soo wacaya ee hadda ku dhaqan magaalada St Cloud waxyaalo badan oo kala duwan baan ka maqlayaa oo xanuunku inuu iska si u qaban qofba uu xanuun gaar sheeganayo maxay nala wadaagi kartaa cabashada bulshada ku soo wacaysa ee afka Soomaaliga ku hadasha ee kula soo xiriiraya waxay ka cabanayaan iyo inta uu leeyahay dadka kula soo xiriirayo ka codsanaya inaad ka caawisid arrimahan xanuunkan iyo inay fahmaan xaaladda والله أنت ضد الله هذا قفبة symptoms كام علامته ويشكت ويكل دبناين وأنا وحل ويقان عذر كان قار دتك واحد هان وحنسكو أركشوان قار واحد هايان قفع قار قندو يقفع قار كرحنون قارنا waxay ku leeyihiin positive bal ay soo dhahay waxwana ma qaba caadigeega ma iska ahay intaasoo calaamadaha waa sax qof basi uu qabanayaa marka
haddii lagugu dhaho positive oo wax calaamadna aad isku arkin oo caadigaaga aad tahay still waa muhiim inaad isolation iyo quarantineka aad geshid oo adiga haddaad caafimaad aad leedahay isdhehaysid waxaan ma qaba dadkan waa beentood ma ahan cudurkan waa sida dadkii kale waad qabadsiin kartaa marka dad xitaa waxaan la hadla dhahayo dee walaalay dadkan waxaan waa iska dhahayaane korka unbaa yarxa xanuune positivena way igu sheegayaane waa run dadna dhulku la galaayo isbitaalka la seexiyaa neefto waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo dadna maba is ogay inay qabaan way iska socsocdaan marka intaas oo dhan haddii mar lagugu dhahay waad qabtaa waxaad fiican inaad xarootid si aad dadkii kale communitygaaga iyo walaalaha aad u qabadsiinin waayahay su-aashani waxay la xiriirtaa dadka soomaalida mararka qaarkood marka uu ku dhaco qof xanuuno kala duwan baa jira oo taariikh ahaan marka aad fiirisid bulshadeenna marka ay maqlaan qofkaasi wuxuu xanuun buu qabaa waxa ay ku sameeyaan tirakoob takoor ayay ku sameeyaan waxaana laga yaabaa inay si xun ay ula dhaqmaan waxaa ka mid a TB-da waxaa ka mid a xanuunkan aidiska hadda waxaaba soo baxday sidoo kale cuqdad dadkii inay ka qabaan xanuunkii hargabka ama viruska ahaa inuu qofku sheegto iyagoo ka baqayo in si xun loola dhaqmo ama qalad laga fahmo ama takoor la sameeyo marka su-aashani waxa way leedahay dadka xanuunka uu ku dhacay takoorka ku jira ama cusuriyadda lagu sameynayo sidee looga tegi karaa kaahin baan weydiinayaa su-aashaas axmed sidaad sheegtay ma aragtay dad badan ayaa waxyaabaha ay u qarinayaan xanuunkan ay u sheegilaan waxaa ka mid ah cusuriyadda iyo mataqaanaa takoorka lagu sameynayo mataqaanaa iyo fiirada gaar ay dadka u yeelanayaan ise gaarkee loo fiirinayo marka dadka waxay gelisay argagax kaba soo qaada adigoo mataqaanaa hadda society iyo mujtamac oo dhan si gaara kuu eego oo sidii ninbam ku xidhan oo qarxay oo kale lagula dhaqmo marka arrintaasaa keentay inay dadku qariyaan oo ay xanuunkooda ka qarsadaan ummadda marka arrinta takooridda dadka la takoorayaa qofka cuqdad bay ku abuuri kartaa nafsiyana qofkii oo istoorbidaya inuu qof xun yahay oo ma aragtay xataa hadhow xanuunka markuu ka ladnaado uu kasoo kaco waxaa laga yaabaa cuqdadaasi inay xataa shaksiyan isaga shaksi ahaan hadhow wax u dhinto mid xataa muddo dheer daba socota oo shaksiyadiisa wax u dhinto qofkii hadhow isku eego qof sidii qof liita inuu yahoo kale ayaa dhici karta qofkii dhaawac u geysato ta kale waxa weeye qarinta qofku uu qarinayo waxaa laga yaabaa inuu dareemo inuu dembiile yahay sababtoo haddii ay dad ka qaadaan ay dadkaasi u dhintaan isagoo xanuunkii qarinaya qofkii wuxuu dareemayaa inuu dembiile yahay marka dembiilanimada qofka uu dareemayo laftigeeda waxaa laga yaabaa iyada laftigeedu inay qofkii ku abuurto fikir badan iyo stress badan kaasoo hadhow qofkii u keeni kara mental illness ama mataqaanaa xanuunka dhimirka waxyaabaha la xidhiidho kale qofkii maskaxdiisa ku abuuri kara marka waxyaabaha sida loogu hortegayo ama sida mataqaanaa xanuunkan loo abaarayo horta marka hore waxa weeye in qof kasta oo calaamadaha xanuunkani ka soo baxo ama hargab ha noqdeen ama ha noqdo ma aragtay xanuunka ha noqdee qof kastoo calaamaduhu ka soo baxaan haddii inta qofka dhakhtarku soo cadaynayo leeyahay xanuunka qofku wuu qabaa ama ma qabo waa in qof kasta loo eegaa ama loola dhaqmaa sidii qofu hayo oo kale oo qofkii la iska ilaaliyaa laakiin iska ilaalinta maaha qofka in la takooro oo cusuryad lagu sameeyo maaha waqtigii qofka loo naxariisan lahaa ee mataqaanaa kalkacal badan iyo wanaag badan la tusi lahaa marka qofka in laga ilaaliyaa mataqaanaa waxyaabaha dhaawaca nafsiyanka u geysan kara ama waxyaabaha stresska badan iyo murugada badan iyo walwalka badan ku abuuri kara sababta waqtigan qofku waa waqtigu u baahnaa in la caawiyo la garab istaago waayahay su-aashaas ayaan ku celiyo sidoo kale iyadoo si kale aan u weydiinayo waan laga yaabaa inaad ka hadashay marar badan hadda bulshadeenii laga hadlayaa qof xanuunkii qabay oo meel dukaana imanaya isagoo aanan xirayn mask ama farmasigii tegaya isagoo aanan xirayn mask ama waxa wejiga lagu saabto oo lagu xirto neersis ahaan haddaad talagelyo siinaysid marar badanna waad ka hadashay oo karantiilka sababta loo yiri qofka ha iska tarilol waxay la xiriirtay inuusan qofka xanuunka gudbin
bulshadeennana hadda waxaa kusoo batay baa leeyahay dad xanuunka qaba oo haddana bulshadii dhex socota maxaa looga baahan yahay qofka xanuunka lagu soo sheego oo dhakhtarku soo waco la yidhaahdo wixii waa laga helay inuu sameeyo ama iskaga shakiyaba hargab hani baan weydiinayaa su-aashaas qofka markii xanuunka lagu soo sheego la dhaho positive baa tahay waxa ugu fiican uu samayn karo inuu horta ogaado miyuu haystaa meel uu geli karo keligiis qol gooni u ah muu haystaa waa inuu qolkii ku jiraa markii loo soo sheegay jawaabta waxaa loo dirayaa kuwan county public healthka kuwa la dhaho kuwaasaa kusoo wacaya adi dhowr 2 cisho kadib camal oo si fiican kaaga sii dhaadhacsiinayo wax kasta laakiin initial education waxaan dhahnaa ama waxbarashada ugu horeysa quarantineka iyo isolationka loo sameynayo qofka jawaabta ku siinaya ayaa kuu sheegaya gurigaa kama bixi kartid xitaa qolka kama soo bixi kartid masquul iyo qolkaagiina u dhexaysid waaye wixii cunto aad u baahan tahayna dadka guriga kula jooga inay albaabka kuu soo hordhigaan ilaa inta qandhada kaa baxaysa ama 14 beri kadib muhiimadda waxa weeyaan inaad guriga ku jiro si aad dadkii kaloo bulshada u qabadsiinin calaamadahaagana ilaalisid nacma haddii aad kasii daraysid oo kale oo cuntadii ay kaa tagto ama waxba cuneen waxba cabeynin qandhadii kaa tambadiso tabardarro kugu dhacdo waa inaad is ilaalisaa hadday kaaga sii darto waad inaad wacdaa Central Care Connect si aad ugu sheegtid xaaladaadii inay isbedeshay si oo talo fiican lagu siiyo haddaad u baahan tahay inaad dhakhtarkii ku noqotid laakiin mar kasta waad inaad wacdaa haddii xaaladaada isbedesho haddii kaloo isleedahayna weli waad iska celin kartaa xanuunkan oo keligaa gurigaa ku jiri kartaa taasaa kaaga fiican laakiin muhiimadda waxa weeyaan inaad dadka iska ilaalisid waxaa kaloo jiro oo loo baahan yahay qofka inuu sameeyo aniga hadda haddii lagu soo sheego oo kale beryihii ugu dambeysoo dhan dadkii aan la kulmay ayaan wacaya waan u sheegayaa oon dhahayaa war hebelow positive baa lagu yiri waa lagaa helay covid waa lagu yiriye dee 14 days adigana exposed baa noqotay hadda wuu kugu dhici karaa dadkii iska ilaali oo 14 cisho adigana isgeli quarantine haddaa isgelin kartid markasta hadda waxaa loogu baahan gurigooda mar hadday ka baxayaan mask inay xirtaan xitaa haddii lagu sheegin covid ama caafimaad ay iska qabaan markasta aad gurigaaga kasoo bixaysid maskalaata xiro sankaagii afkaaga daboolo gurigaaga mar alla markaa soo geshid gacmaha iska dhaq waxa ugu horeeya oo aad samaynaysid gacmahaaga waa inaad iska dhaqdaa oo maaskigina iska saartaa oo dhaqdaa isaga naftirkiisa hadda dad badanoo waxaa arkay maaska oo loo talay xiran maaskiga waa muhiim inaad dhaqdid hal mar maalintii markaa banaanka ku aadid at the end of the day dhaq haddana isticmaal the next day maalinta ku xigto waaya waa mahadsan tahay inaad arrintaas yara taabatay maanta maraan suuqa soo marayay waxaan arkayay in bulshada soomaalidu ay hadda aad u bilaabeen gaar ahaan dumarka oo muddo badan aanan xiran jirin indha shareerka in ay hadda bilaabeen in ay xirtaan indha shareerka dabcan anigu naftigayga halkan buu ii yaalaa maaska hadda noocaa ka hadlaysid marada ah marka aan si gaara ku weydiiyey maadaama hadda aan arkay dumar badan oo indha shareerkii waxaan garan waayey meelay dumarka indha shareerka ku haysteen sababta tahay gobolka hadda jooga lama isticmaali jiray laakiin hadda aad bay usoo bateen indha shareerka marada nadaafad nooceeya ayay u baahan tahay qofka isticmaalaya sidoo kale indha shareerku waa dabcan isagu naftigiisa uu cover garaynaya wejigoo dhan laakiin maxaad iyadoo naftigeeda ka oran lahay dumarka hadda batay ee indha shareerka isticmaalaya arrintan xanuunkan viruska si ay uga hortagaan horta indha shareerka wax la-aan huu dhaamaa iyo maamoyin badana arkay oo gabasaartooda u saaran yahay sanka iyo afka wax la-aan huu dhaamaa laakiin maaskigan oo homemadeka dadka sheegayaan mare loogu talagalaa jirto oo haddaad aadid meelahan maryaha lagu gado Joanne Fabrics iyo meelahaas way ku sheegi karaan marada maaskiga laga sameeyo waa maro oo special oo loogu talagalay oo dee waxyaalaha qaarkood ka reebaysa neefta markaa qaadanaysid laakiin haddii maradaas oo kale hadda aadan haysanin
in shareerka iyo gabasaarta way ku dhaamaan wax la'aan laakiin muhiimaddu waxaa weeyaan haddii oo magaaladii ay ku aadeen shareerkaas ama gabasaartaas marka guriga kusoo noqoto maalinkaas waa inaad dhaqdaa oo laundryga gelisaa ama haddaad dishwasher haysatid mashiinka weelka lagu dhaqo xagga kore saartaa waa ku mahadsan tahay inaad aniga naftigayga waxaan malaynayaa inaad way wanaagsan tahay in dabcan habeen walba qofku markuu guriga kusoo noqdo inuu si fiican iskaga noqo maradaas maadaama marada naftigeeda iyagu naftigeeda wax badan ay taaban karaan dadka ku nool magaalada St Cloud barnaamijkan hadda bartayda Facebook ka daawanaya ama daawanaya St Cloud Somali TV ama radio ka daawanaya waxaan jeclaan lahaa inaad barnaamijkan na soo wacdaan oo aad nagala qayb qaadataan numberka shaashada ku qoran bal aragtidiina iyo sida looga hortagi karo kulli community-ga Soomaalida waxa la leeyahay si aada ayuu u saameeyay dad badan almost waxaan malaynayaa maba jiraba qof ama qoys aanan aqoonin oo aanan ii sheegayn qof aan garanayo oo magaalada jooga uusan xanuunka uusan ku dhicin marka waan jeclaan lahaa dad ka mid ah dadka St Cloud inay barnaamijkan live-ka nagala soo qayb qaataan wixii su'aalaha ay weydiiyaan kaahin oo ah therapist dadka la taliya dadka arrimaha xagga maskaxda oo ka shaqeeya Center Care iyo Hani Jacobson oo iyadana u shaqeysa Center Care gaar ahaan u qaabilsan arrimaha caafimaadka ee la xiriirka Center Care aadna waan uga mahad celinayaa labadoodaba waxaan rabaa arrintan hadda aanu maqlayno oo ah qofkii inuu xanuunkii qarsanayo waxa laga yaabaa inay keenayso ama keentay aragtida qofka Soomaaliga uu ka aaminsan yahay haddii xanuunka qaarkood lagu ogaado si qaldan ayaa lagula dhaqmayaa marka waxa weeye su'aashani cuqdada dadka xanuunka ku dhacay gali karto ama sida looga hortagi karo ma hubo laakiin marba waxaan arkayay nin odaya Ingiriiska jooga qisada xaqiiqdeeda ma hayo ayaa cudur ku dhacay xaaskiisa tira waran oo soo galin guriga soo galin ninkii wuxuu arintii dhibaato ku sameeyay laakiin xaqiiqdeeda ma hayo marka qaarkood waxaad arkaysaa qof markuu yiraahdo qofkana xanuunka ugu dhacay in dadkii qoyska ahaa iyo dadkii asxaabta qofka si xun ay ula dhaqmi karaan marka kaahin maadaama cilmiga maskaxda aad baratay maxaad oran lahayd qofka hadduu ehelka ah ku dhaco xanuun sida loola dhaqmo ama sida loola macaamilo maxaad ka oran lahayd arrintaas Ahmed arrintaas sheegtay waa arrin runa oo jirta sababtoo qofka mataqaanaa dhaqaatiirtii baa kule isolation gal oo is isolate garee haddana waxaa laga yaabaa qaraabadiisii iyo dadkii ehelkii ugu dhawaa ee dhaqaaleyn lahaa inay iyaguna maaragtay qofkii si gaara u fiiriyaan marka arrinta meesha ka maqan waxa weeye inta badan qofku markuu xanuunka ku dhaco shuruudaha iyo waxyaabuhu samayn lahaaba inta badan laakiin dadka inta badan kama hadlaan dadka kale ee guriga qofka la degan ama dadka qaraabadiisa ama dadka kale say qofkan ula dhaqmi lahaayeen ama ay u dhaqaaleyn lahaayeen qofkan marka xanuunkani ku dhaco jahwareer baa ku dhaca waxa laga yaabaa qofku xataa inuu garan waayo maaragtay waxyaabaha muhiimku samayn lahaa marka in mataqaana adigu qofka kale ugu dhow inuu qofkii maskax u noqdo oo qofkii mataqaana uu ka warhayo dawadu qaadan lahaa iyo waxyaabaha uu baahan yahay waxyaabaha ay tahay inuu qabto isagoo qofka is ilaalinaya waa mid muhiim ah waan dareemi karaa inay ku socoolan sababtoo ah xanuunkani waa xanuun dhimasho keenaya dhimashaduna ibni aadankuna bay cabsi gelisaa cabsi ku abuurta khaasatan Soomaalida oo dhimasho badan iyo rafaad badan soo aragtay ama kara cabsidii ku abuuri karto waliba dadka marka trauma ku soo dhacdo mashaakil ku soo dhaco waxyaabahaas oo kale aad bay ugu nugul yihiin oo inaga dadka cadaanka la deganahay dhulkan aad baan uga duwanahay oo saameyn gaara ayuu xanuunkan inagu yeeshay kala dadkan waxa kale oo jirta luqad ku jiro laawada ku fasaxay dadka wadankan degan way fahmayaan luqadii way fahmayaan oo ma aragtay wixii way akhrisanayaan laakiin inaga Soomaalidii waxa way xataa luqadii ayaa ma aragtay meeshay aan jirin information badan oo aan runahayna meediyuhu ku jira marka kaaliftigiisuna inuu jahwareer qofka ku rido ayaa laga yaabaa marka waqtigani waxa waqtigii qofku uu baahnaa in kalkacal badan iyo jacayl badan la tuso iyo gargaar badan adoo qofka kale waaye qofka codku badan uu ku furan yahay iska xir
qadka ku jiro fadlan codka iska waayahay waxaana soo wacay laba qof oo hadda qadka ku jira inkastoo different area code ay kala wataan waxaan rabaa bal haddii ilaahay idmo inaan ku furo qayb ka mida dadkan ama hadday su-aalo qabaan qofka ugu horeeya ee area codeka iga soo wacaya 6 aan idhaahdo kusoo dhawow magacaaga haddaad sheegaysid haddii kalena bal nala wadaag waxaad rabtid inaad ka hadashid waxay raalli noqo ukaada aan kugu xira systemka mana maqlaysaa aniga miyaa ku jira walaal waad ku maqlaynaa ku soco waa ku maqlaynaa okay walaal su-aashaan qabo waxay ahayd dadkeena way jecel yihiin salaanta isdhunkashada labada dhunk iska dhunkanayo marka aniga ciyaalkaygaba waxaan qaadnay paranoid iyo ama buufis aan dadka inaan ka cararno marka seebaan isku ilaalin karnaa inaan dadkeena dhabanada iska dhunkanin ama aan dhahno see qof weyn ku dhihi karaa hay dhunkanin salaanta aad baad u mahadsan tahay waad maqlaysaan baan u malaynayaa su-aashaada waa weydiinayaa laakiin jawaabteeda halkan kama maqli kartay marka inaad ka dhegaysatid weeye dhinaca kale haddii lahaydmo hayo waaye waa mahadsan tahay waa mahad adaamada walaal qofka kale ee ku jira kusoo dhawow adigana assalaamu calaykum waan salaamay wacalaykum assalaam aniga maxaad ahaay guriga ku jira aniga 3 ilmo yar baan haystaa banaanka ma baxo buufis waa qaadirnaantii qofna ima imaado familkayga dhan waxaa ku dhahay maalmihii gurigana lagu xareeyey aan dhahay noo imaanina ma garatay dadkii dhan waan iska xiray marka qofna ma imaado odayga xataa taraagla waaye asaga waxaan ku dhahay noo soo agmarinba total meelahaaga iska mar ma garatay waa gartay marka aniga su-aasha keliyaasi aan raba inaan weydiiyo waxay tahay qofka marka lacala uu qof hadduu ku dhaco salaano qolka lagu xiro qolka uu ku jiro ushaa qolka ka dhexeeyo cuntaad karisay cuntada markaa u geysid albaabka wareegtay cuntadu saxanku ka cunay markuu kuusoo dhiibaya maxaa sameynay soo wixiiba ma qaadaysa ma dhaqaysa adana ma wacelinaysa su-aashaas aniga aan ku wareeray ma garataan isweydiinaya mar badan marka waxaa tirbara weydiiyeen waayahay waa mahadsantihiin labada waxay la xiriirtaa buufis ama shaki dhakhtarkana waa weydiinayaa laakiin intaan dhakhtarka iyo haniba aanan u gudbin su-aal aniga naftigayga personala ayaan rabaa qaar inaan kaga jawaab barta aan anigu hadda aan fadhiyo qol ku yaala wiil walaalkayaa ku xanuunsanaa anigaana cuntada u geyn jiray marka waxaan soo gadanay alaab one time use marka xaafadda markii cuntada looga keeno alaabta one time use-ka ah oo saxan iyo caag ah ayaa loogu shubi jiray cuntada loogu ridaa albaabka loo dhigaa isaguna marka uu isku ogaa dabcan sida odaygaagoo kalaa wiilku walaalkeena wuxuu ahaa taraagle asagaa marka qolku ku jiray u qaatay cuntadiis meeshuu ku cunay alxamdulilah hadda wuu caafimaaday dhakhtaradiina way fasaxeen wuu shaqo tegay marka one time use baanu isticmaalaynay shay walba uu marka isticmaalayay asagaa bacda qashin ku ridi jiray horena u tuuri jiray marka wax uu isticmaalay naguma soo celin laakiin arrinta ah inaad adiga iyo 3 caruur aad dhashay qol aad ku xirantihiin oo xaajigiina aad tiri warana soo agmarin bal arrintaasi ma saamayn ahaan maskax ahaan waa weydiinaynaa dhakhtarada waxaana ka dhegaysataa jawaabta dhinaca facebook maadaama aadan codkooda halka ka maqli karin waayahay dhakhtar kaahin aan ku hormaro maadaama aad cilmiga maskaxda aad baratay labaduba gabdhoodba waxay ka hadlayaan wax maskaxda la xiriira waa run cabsi caynkaas oo kale ah waad ka maqlaysaa bulshadii nin markuu albaab ka soo galo la buufinaya sidii kaneeco inay reerka usoo gashay oo kale gabadhii hore waxay ka cabanaysaa dadka Soomaalidu dhaqan ahaan bay u leeyihiin salaanta iyo waliba isdhunkashada aniga iyo caruurteeda waxaan aad uga baqaabay tirseeba si xushmad leh aan u oran karaa qof weyn oo waayeela ha dhunkanin ama na salaamin see loo oran karaa waa su-aasha muranka badan ama dadka badan fiidiyoyaal badan laga sameeyey gabadhana waxay leedahay guri baan ku xirahay aniga iyo 3 caruurta waxay igu kaliftay inaan raad xaajigii xataa ha noo imaanin marka saameyn maskaxeed baad moodaa dadkii inuu ku sameynayo eelkii iyo dadkii isjeclaaba xataa ay kala baqayaan maadaama raggayaga aanu dibadda wareegno in la leeyahay warbanaankiina jooga kusoo dhow kaahin thank you Ahmed cabsida horta wax jirta waana wax ma aragtay jirto oo mataqaanaa caadi ah oo mar kasta oo dhibaatooyin ay dhacaan cabsidu way timaadaa waa waxaan fahmi karo oo ma aragtay
ummadoo dhan bay ku dhacday Soomaalidu maaha cabsidan waa mid jirta qofan la shaqeeya maalin dhaweyd wuxuu yidhi markaan shaqada ku soo laabano haddii sidii dad waalwaalan aan u dhaqanno ha la fahmo buu yidhi ma aragtay wax iska caadiya sababta inagoo fiyo guryaha ka soo bixi mayno marka mataqaana waa arrin dadkoo dhan saamaysay marka qofka ibni aadanka horta waxa weeye xaqa uu leeyahay ugu horeeya waa in naftiisa ilaaliyo waana in nafta dadka kala ilaaliyo marka waxa weeye in aad dadka ku tiraahdo ha idunkanina xaq baad u leedahay xaqaad u leedahay waxa weeye naftaadaad ilaalinaysaa talabaad nafta qofka kalaad ilaalinaysaa marka qofka weyn naftigiisa sidaad wax u fahansiin kartaa waxa weeye inuu isagu qofka weyni adiga xanuunka kaa qaadi karo oo isagu halis u yahay sababta qofka aanad u dhunkanaynin ama aanad u salaamaynin ay tahay inaad isaga u danaynayso qofka ood isaga ilaalinayso naftiisa maadaama xanuunkani dadka waaweyn aad u dilay marka dadka waaweyn waxa laga yaabaa inayna waxba fahansanayn oo luqadooda iska liidato ama aanay waxba akhrin ama warxumo tashiilka iyo waxyaabaha mataqaana informationka qaladkee miidiyaha ku jira inay mataqaanaa ay dhegaysteen baa laga yaabaa marka qofka si wanaagsan oo mataqaanaa cilmiyeysan badax ugu sheegi kartaad leedahay dadka waaweyn buu xanuunkani dilaa dhunkashada aan ku dhunkan laanahay ama aanaan rabin inaan ku salaano macnaha maaha ma aragtay wax xumaana ee waxa weeye adiga ilaalin aan adiga ku ilaalinayno iyo danayn aan adiga ku danaynayno oo caafimaadkaaga inaan ilaalino aan rabno marka qofka sidaas wax u fahansiin kartaa waxaan hubaa in qof kasta oo sidaa loola hadlo oo sidaa loo fahansiiyaa inuu mataqaanaa fahmi karo labaad waxa weeye arrintan labaad ee ma aragtay guryaha in la isku soo xidhay mar haddii aanad xanuunka qabin uuna xanuunka adiga kugu dhicin qasab maaha inaad guriga isku soo xidho mana fiicin inaad guriga isku soo xidho waxa weeye carruurtana intaad kaxayso ayaad banaanka geyn kartaa xaafad kastaaba waxay leedahay meel beero carruurta ku ciyaarto marka halkaasaad geyn kartaa adigoo mataqaanaa ka taxadiraya inay carruurta wax taataabtaan kale markay guriga kusoo laabtaan carruurta ma aragtay waa inay gacmahooda mayraan sababta inta badan carruurtu meel kastay taataabtaan oo daraasaad badan oo la sameeyey waxaa la sheegay in carruurta ay aada xanuunka u faafinayaan sababtoo carruurtaada hadda dad dukaan la aado ama ma aragtay suuqaad geyso waxaa laga yaabaa ilmihii inuu xataa dad aanu garanayn iska salaamo ama meelo inuu taabta inaan iska taataabto marka adigoo carruurta farahooga ilaalinaya oo guriga markay yimaadaan ma aragtay u sheegay inay gacmahooda maydhaan waxa weeye in banaanka loo baxayaa wax dhibaatihii kuma jirto qofku inuu islaaliyo uu ruleskiiyo regulationka raacun baa muhiima waxa weeye fadhiga badan ee guriga ma aragtay la fadhiyaa dhowr arrimoodba uma fiicna maskaxdaada uma fiicna kale dadkeena Soomaalida vitamin D-ga ku yar oo dad badan oo Soomaaliya vitamin D ku yar yahay baa jira vitamin D-ga yaraantiisuna inta badan waxay keentaa daraasaad badan oo la sameeyay waxa lagu sheegay in uu keeni karo depression ama xanuunada dhimirka la xiriira xataa fadhiga badan ee guriga la fadhiya waxa ku keeni kara difaaca jirkaagu inuu hoos u dhaco oo ilaahay kuguma keena xanuunkan hadduu kugu dhaco in hadhow mushkilado waaweyn ku geysan karo marka in qofku dhaqdhaqaaqo active noqdo waa mid muhiima weeye oo ma aragtay alxamdulillah Maraykan baan joognaa maanta oo meelo badan oo carruurta la geyn karo ama la lugayn karaa way jiraan marka aduu labadii maalmoodba hal maalin inaad baxdaa fiican oo banaanka u baxdo carruurta banaanka geyso waaya dhinaca caafimaadka dhinaca xanaanada ama caafimaadka taxadar ahaan ayaan waxaan rabaa sidaas oo kale inaan weydiiyo hani mar badan dad badan baa ku soo waca waxaad ku tiraahdaa iskarantiil oo qolkaa ka soo bixin waxaana ka dhalata isfahmi waa fara badan baa dhalata qofka cilaaqaadka bulshada bal waxaad noo sheegtaa mar kale ama aad ugu celisaa bal bulshadan in badanna waad la hadashay waxaa loo baahan yahay qofka xanuunka qaba iyo dadka la noolba haddii ay dhacdo ee qoyska ah waxyaalaha labada qofba aad kula talin lahayd kusoo dhawow hani miyuutaan ku jira raali ahaa ama qofka markii lagu soo sheegay nacam positive baa tahay la dhaho muhiimadda waxa weeyaan dadkii kale inuu u fahmo jirada marka qolkaaga ku jir waxaan u leenahay waxa weeyaan hadduu qolkii kasoo baxay waa inuu mask xidhaa markasta inuu qol
qolka waxyaaluhu isku maaweeliyey waa inuu haystaa ama telefoon radio TV buugaag qofka hadduu qur-aanka akhristo hadduu buugaag jecel yahay waqti dheer oo aan ku dhahno qolkaas ku jir ilaa ijrada kaa baxaysa ilaa 3 beri qandha aad iska weysid ama xanuunka dhan uu kaa baxo sometimes 10 beri ilaa 14 beri qaadataa marka qofkii inuu qol keligiis ku jiro intaas oo dhan way adag tahay bilaadan ayaan ahay qofku isla hadlayaa laakiin muhiimaddu waxa weeye support family inaad haysatid saaxiibadaha telefoon kuu soo diraan qofkii xataa cuntada saxamadu Canada sheegay oo one time use kugu soo dhiga albaabka haddii aqolkii ka soo baxaysidna maaskigaaga aad xirataa si aad u sii faafin waxay haddaa musqusha gelaysid haddaa jikada imaanaysid markasta weji sankii afkaa kuu daboolnaadaan marka qofka markii lagu soo sheegay xanuunka support badan u baahan yahay inaan sii fogeyno uma baahnin inaan waxaan ka dhigno wax laisku caayo uma baahnin qofkii waa inaan soo dhaweynaa oon caawinaa oon dhahnaa wax caadi ah waad ka baxaysaa anagina dee we are here for you ama xaggan aan kuu joognaayo kale aad baad u mahadsan tahay qofka qadka ku jira numberka area code 619 kusoo dhawow walaal barnaamijka magacaaga iyo su-aasha aad qabtid ama sida waxaa rabtid inaad nala wadaagtid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بنت لوران شوغان. مرعي جوا خلفه. اوكي. ولا يسمع ربي سؤالي إذا ودي سؤال شيء واحد تهاي. قف ماشو كشقيني حنون كبدن كودي لقاه لي كدب مركو شكي اختار كعادي لو يري بوزيتيف بات تهاي قفكي وحنون ملي على مديه ويديين ولن هل حنون كمشي جميع وعافنات كذا waxaan lagu yiri positive baa tahay gurigii ku jir gurigii qofkii maxaa maxaa la ma xanuunsanaye gurigii iyo reerkiisa uu la noolaanaya musqushii waa hal macnaha noloshii isagina waa caafimaad qaba positive na waa tahay lagu yiri marka bal xalka noo sheeg okay waayahay waa mahadsan tahay jawaabta halkan kama maqli kartid marka dhinaca Facebook insha Allah ka dhageyso أيه والله thank you okay haddaad maqashay hani su-aasha gabadhaas qof ayaa meeshii uu ka shaqaynayay dadkii badankii laga helay isagoona wax xanuuna aan qabin ayuu isbaaray wuxuu ka mid yahay aan qiyaasaynaa sankalool bay gabadha ku nooshahay dadka hadda baaritaanka faraha badan lagu wada samaynayo warshadaha waxay leedahay qofkii xanuun ma hayo qolkan isku karantiil baa la yiri sida ta kale sideebuu alaabta reerka musqusha dabcan aan kuusii raaciyo wax dheeraada kulle waxyaalaha dadka wadaagaan waxaa ka mid ah kitchenka furniture-ka fadhiga bal maxaad ka oran lahayd gaar ahaan weliba musqusha iyo qolka qofka maxaa loo baahan yahay qofka musqusha markuu isticmaalo inuu sameeyo xanuunka qaba weliba gaar ahaan inuu nadiifiyo marka sidaan hore u sheegay xanuunkan qof kasta si different si uu u qaadaa dad waxaa jiro viruskiisito laakiin xabad wax isku arkaynin dadkaas waa dadka ugu adag tahay sida isku quarantine garan lahaayeen sababtaas waa waxay ku leeyihiin war waxbaba ma qabay dadkan waa beentood waxay sheegayaan waxba positive baatay leena iskama arko caadi laakiin qofka noocaas oo kale cudurka ma fidin karaa waa laga sii qaadi karaa hadduu aad qofka lagu ku ridi karaa isaga waxaa laga yaabaa inaysan waxba u keenaynin oo dee uu iska sito laakiin dadkii guriga la joogay dadkii banaanka joogay uu ku fidin karaa quarantineka uu u baahan yahay inuu galo saxamadii waa usoo gadi kartaa uu ku cunayo cuntada frinjeerka ama tubada ama waxaas hadduu taabado waa inaa sanitize ku sameysaa oo spray gareysaa oo masaxdaa ama isagaba qofkii wuu masixi karaa wuu spray gareyn karaa musqusha markuu soo isticmaalo wuu spray gareyn karaa wuu masixi karaa albaabkii hadduu taabto waa la masixi karaa laakiin qof dadna dhulkuu la gelayaa oo isbitaal bay u baahan yihiin dad sidii hargabkuu kale usoo marayaa dad sidii fluuguu kale usoo marayaa dadna caadigooda bay iska yihiin iyagoo viruskiina sida dadkaasna weeyaan bahasha sii qaybinaya dadka aan xanuuni waxba qabin isma oga inay xanuunkii qabaan dadkiina way usii faafinayaan
waayahay waa mahadsan tahay dadka raba inay barnaamijkan su-aal ay naga weydiiyaan waana soo wici karaan gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada St Cloud oo hadda ay tahay meesha aadka looga qaylinayo oo ilaa ay jaraa'idadii ugu waaweynaa waddanka Mareykanka lagu soo qoray sida New York Times sida aan ognahay dad fara badan oo ku dhaqan magaalada St Cloud waxay ka shaqeeyaan warshadaha qaarkood aan shaqada joojin oo kamida kuwa cuntada soo sameeya sida Genio iyo Golden Plum Pilgrimage Company la yiraahdo labadaba waxa ka shaqeynayay kumanaanka qofna waxa ay ehel ama caruur ama xaasas ay leeyihiin ayaa magaalada degan waana sababta laga baqay inuu cudurkan aad uu bulshadeena ugu fido Soomaalida waxaan rabaa inaan kaahin dib ugu noqdo Soomaalida St Cloud degan xanuunka si gaar ah in uu u saameeyo ma laga yaabaa already waxaan u malaynayaa waan aragnay sida uu u saameeyey laakiin ma ka sii xumaan kartaa arrintan oo ma la oran karaa arrintani waxay noqon kartaa arrin saameyn weyn ku samaysa bulshadeena Soomaalida ku dhaqan magaalada St Cloud kusoo dhawo kayn Ahmed mataqaanaa waxaa laga yaabaa inuu si gaar ah u saameeyo sababahan hore ugu soo sheegnay hadday noqoto caafimaadka bulshada ama dhaqaalaha ama meelaha ay Soomaalidu وعليكم السلام walaal ku jir qadka kugu fasaxaya ama Soomaalidu u nool yihiin iyo meelaha ay ka shaqeeyaan Soomaalida inta badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin warehouse-yada ama dukaanada aan meelahaas waa meelaha inta badan cadadkayntooda badan ka soo qaadeen xanuunada marka waxa weeye taasi waxa Soomaalida u dheer luqadii iyo dhaqankii oo ma aragtay dadka Soomaalida ee St Cloud inta badan ku cusub luqadda iyo dhaqankii inayna fahmaynin iyo systemkii sidii mataqaanaa haddii ay dhakhtar raadsan lahaayeen iyo haddii ay testi center ay aadi lahaayeen ay testiga iska soo qaadi lahaayeen marka arrintaasi waxay abuurtay cabsi badan bay bulshada ku abuurtay cabsidaas oo ma aragtay argagax badan iyo mataqaanaa confusion badan bulshada ku keentay iyagoo dadka intooda badan hadda waxyaabihii aan soo sheegnay ee ahaa in dadka qaarkood ay door bideen gabdhaha qaarkood inay niqaam qaataan sida Hani ay sheegtay in niqaamku uu yahay wax aan ka celin karin 100% xanuunka bal haddii aad fiiriso psychologically waxa weeye at least waxa laga yaabaa inuu mataqaan niqaamka ay xiranayaan niyadda u dejiya laga yaabaa store bidaan inay mataqaan at least ka badbaadi karaan markaad psychologically u eegto niqaamka ay xiranayaan inuu waxoogaa stresska ka yareeyo laga yaabaa oo cabsidii badneyd ay ku jirtay inay xanuunka qaadaan inuu ka yareeyo laba dhinac waa loo fiirin karaa dhinac ahaan waxaa laga yaabaa in waxba ka celin caafimaad ahaan marka la eego laakiin psychology ahaan marka la eego ma aragtay waxaa laga yaabaa inuu stress ka yareeyo marka arrintani saamaynta kale ay ku yeelan karto Soomaalida waxa weeye maadaama numberkii Soomaalidu aad hadda u kordhayo magaaladana magaalo markii horeba mataqaanaa dadka magaalada degan dhammaantood qaar ka mid Soomaalida ayna jeclayn oo ayna rabin Soomaalida inay magaaladan joogto in ay abuurto cadaawad dadka waddankan degan ay Soomaalida u qaadaan sababta wadamo badan bay hadda aynu arkaynaa si India oo kale in muslimiintii leeyahay iyaga faafinaya xanuunka China oo kale in leeyahay Afrikaanka faafinaya xanuunka oo dukaanadii iyo makhaayadii laga soo xidhay marka maanta meel beeron joogin in cadaan oo isku aragnay i weydiiyay su'aal maxaa sababa in Soomaalida ma aragtay ay Soomaalidu ay yeelato numberka ugu badan ee xanuunadan St Cloud marka waxaan u sheegay in Soomaalida ay yihiin dad waddanka cusub dhibaatooyin badan oo dadka cadaanka aan haysan oo gaar ah ay Soomaalida haystaan ay taasi sabab marka mushkilado badan ayuu xanuunkani ku keeni karaa Soomaalida laakiin shacabka Soomaaliyeed magaalada degan uu isku yimid una dadaalaya inuu hawsha ma aragtay wax ka qabto
waayahay qof baan siinayaa balse inta aanan iloobin anina waxaan filayaa in ay arrintani ka hadlayso xaqiiqdii waxaan ogahay sida ama neeriska ama dhaqaatiirtu ay xanuunkan u saameeyey ama ay ugu dhimanayaan in dadka soomaalidana xanuunkan uu ka soo gaaray goobaha shaqooyinka waa muhiim arrinta in dadka si fiican loogu wacyigeliyo loona sheego gaar ahaan bulshadan u badan caddaanka laga yaabee inay eed ama waxaan ognahay u saarto bulshadan immigrantska waxaan rabaa qofka soo wacay inaan siiyo laakiin waxaan rabaa inaanu kasii hadalno saamaynta iyo fikirka qaldan oo u baahan in laga hortago ay ka fidin karto bulshada soomaalida ah in qalad laga aamino sababta ugu badiyey cudurka walow aanan daatadii lahayn xagga dowladda qofkanaan siinayaase insha allah number 612 qofka iga soo wacay kusoo dhawo barnaamijka السلام عليكم أحمد مهري كما هاري رفتر الله السلام يا أبي جل كلامه وحن كمية هاي أن يرى كنا مجرد السكرات حنون كان سويش كذا لكن إنسان صور زمين واقرتك وحن درنا أما حنون شو قندعة من كده بيسي وحاجتك أورطة يلدنك waxaan ka soo baaray maalin dhowtoole meesha baaritaanka soo maray laakiin natiijadii weli ma helin so anigu waa caafimaad qabaa sidii ruux caafimaad qabaa u socdaa qandho malihi okay so markaad u karantiiri kara macnaha qoftaas oo kale aan ahay macnaha waa iraadiyaa waa taxadiraa laakiin haddana waxaan rabaa inaad tallaabooyin sidii wixii aan samayn lahaa anigoo macnaha aan waxba qabin gurigii ku jiri karin caagsiya guriga haddana inaan taxadiro waan rabaa waay walaal markaad tiri qofka waxaan u socdaa sidii qof caafimaad qaba maxaad ula jeedaa xilligan hadda la joogo qof walba waxaad moodaa inuu dagaal xanuunka uu ku jiro ha macnaha waxaan ka wadaa qandho malihii macna xumad iyo qandhiyo waxaas malihii dan maadaama markii hore aan ka erdareemay oo urtiga tagtay waxaan u qaatay inaan qabo xanuunkii laftigii so waxaan ku karanteedaa qolkayga dadka markaa ila isticmaalaya sida gabadhaa sheegtay musqusho kale ama meel aad taabatay haddii lacag ay taabto kale waxaa dhici karta in meesha laga soo gaaro waana adag tahay macnaha qofku inuu meelo badan iska ilaaliyo inta badan soo ma jirta tallaabooyin macnaha dadka sidoo kale ay iska socda lagu wacyigelinayo oo loo sheegay in la yidhaahdo aada iska soo baara meelaha xarumaha aada caafimaadka okay adigu waa isbaartay laakiin jawaabti baa sugaysaa goormaa isbaartay abu 2 days ago 2 days ago xagee ka shaqaysaa أنا ليس قيا وشيء صار هيك warshadaha hilibka waa marka shaki baa kugu jiray miya warshada naftigeeda in shaqaalaha qaarkood kala qaadeen shaki taasa ugu jiray shaki dartiisa aan soo aaday calaamada kaliya isku aragtidna waxaa weeye hadda dhadhankii ayaa kaa maqan iyo urtaga tagtaa labadaas ugu tegay wal dhowr marna waa dad badan way sheegayaan arrinta urka iyo dhadhanka laakiin insha allah si aad hadalkooda aad u maqashid iyo waxay tala ay ku siinayaan waana jeclaan lahaa barnaamijyada dambe inaad soo wacdid markii jawaabta aad heshid inaad ka dhageysatid dhinaca online-ka waa mahadsantahay walaal allah ku caafiyo okay wadarta ma sha Allah way salaam alaykum wa alaykum asalaam ku soo dhawow hani wiilka dhalinyarada ah waxa weeye dadka ku dhaqan magaalada St Cloud waxa uu ka shaqeeyaa warshadaha hilibka waxa uu leeyahay baaritaan buu isku sameeyey baaritaankii unbuu sugaya hadda jawaabtiisa laakiin calaamadaha uu isku arkay waa urkii iyo dhadhankii oo dad badanna sheeganayaan inuu ka tegay maxaad kula talin lahayd hadalka uu yiri na waa ku celiyey si qof caafimaad qabaan u socdaa waxaan rabay inaan bal kusoo dhawow walaal aada ugu mahadsan tahay jawaabtaada amin su-aashaada horta calaamadaha sheegtay waa calaamadaha dad badan aan ka maqlay dhadhanka iyo urkiyo tagay marka muhiimadda waxa weeyaan intaad jawaabtaada sugaysid waxaabad kasoo qaadaa inaad viruskii kugu jirto sidaas oo kale u taxadar muhiimadda ugu weyn adigii dadka guriga kula jooga aad samayn kartiin markasta inaad gacmaha dhaqatiin oo saabuun ku dhaqatiin ilaa 20 ilaa 30 isbirqsi oo biyo kulul iyo saabuun aad gacmaha ku dhaqanaysiin inaad sanka iyo afka kala xiritiin 6 talaabadood ama 6 mitir I mean 6 feet isku jirtiin markasta si aad u yareysiin sidii cudurka loo kala qaadi lahaa
marka dad badan oo waxaan la hadlay caadigoodii dareemayo wax xanuun isku arkin oo laakiin jawaabtooda sugayaan intay jawaabtooda sugayeenna magaalada iska dhex socdeen waxay dhahayeen waxna ma qabno jawaabta markii soo noqotana waxaa lagu dhahay baa tahay marka intaa jawaabtii qofka sugayo waa inuu iska soo qaadaa inuu leeyahay viruskii uu taxadarkiisa isla markii uu calaamad ilaa markuu isku arkay ilaa jawaabtii uu helayo uu taxadarkii bilaabaa marka fiican ay yeelaysaa dadka guriga kula joogaan markasta gacmaha iska dhaqaan 6 feet kala jooga markasta sankii afkana haddii xirnaado markaad isku soo qolka aad kasoo baxaysid ama jikadii iyo musqushii aad la wadaagaysid waaya inta aan kaahin dib ugu noqon fariin dadka Soomaalida social media aad uga dhageysteen oo ah hees yar oo macno badanna uu ku jiro ayaan rabaa bal wax yar inaan dadka la wadaago hadii Ilaahay idmo raali noqda waan dib kaahin baan ku soo noqon doonaa كرمنا كما طلب سنة بلسي تعدر 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 هاي تابن هاي ستابن ميل قرا هتابن هتابن هاي ستابن وجيجا هتابن تيرتيرو كما كمبر بيت تلابا وجر صوتك كاكله هتو كتابنا عيدو تجيني تكورو نفتها بانو كما كمبر بيت تلابا وجر صوتك كاكله هتو كتابنا عيدو تجيني تكورو نفتها بانو توحيد كعلوم بتتري كري تلنا إيباغا سارو 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 هلو كعلوم بتتري كري برنامج كده أرتاح كل سارو 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 اوكي اوكي waayahay yarar raali noqda qof baa taleefanka iga soo wacay oo raba inuu isaga naftigiisa barnaamijkana soo waco ama uu ka soo qayb qaato heestaa yar waa dhinaca youtube-kun baan hadda kasoo qaaday ma hubo exactly cidda fanaanka waan garanayaa laakiin cidda edit garaysay laakiin kulley qof baa dadaal dheeraada sameeyey fariimo badanna way ku jiraan bal insha allah waxaana jeclahay heestaas iyo heesa lamida bal raadiyaha magaalada inaan geliyo nin dhalinyara baana soo wacayay oo raba isaga naftigiisa barnaamijka inuu ka qayb qaato laakiin haddaan dib ugu noqdo كل واحد هذا اللي جارين وأعتقد يقول الدكتور أمين كاهن ما أنت قف بوحي ويدي محا السببي إن بالشدة سومالي ذا نمبر كيد وسرقعه لبدينا ما نقدر ويدينا ما كلتها أرنتاسي مرة بدنا أرتيكل الله على قري local newspaper كصباح في إنجليزية إن يعني حقته نبتة على سيو أو حنون كان بدي ملها تتكن minority على شيء جيا تتكن متسكانك يسومالي ذا inuu warshadaha hilibka from Nebraska Minnesota Warlington meesha la yiraahdo oo lagu qali jiray hilibka doofaarka meelaha digaaga meelaha hilibka turkiga inuu yahay dadkii essential workers ka oo ka shaqeynayay oo ku fiday arintan in bulshada kale ay fahmaan inay ahaayeen dad shaqaale ah dadkan oo aan la fasaxin ama qaarkood lagu qasbayba inay shaqada ay yimaadaan iyagoo xanuunsan arintaas in bulshadu ay ama dadkeeda aqoonta la tacliinta la jaraa'idada wax ku qoraan si mujtamaca ay si fiican ugu fahmaan kaayeen maxaad ka oran leedahay arintaas oo si aan qalad looga fahmin bulshadeena wallahi arintaas waa arin muhiim ah oo ma aragtay Soomaalida ay ka wada hadasho ay tahay waxa weey kulay wasaad sheegtay waa arin u baahan in wacyigelin badan dadkan la deganay cadaanka sidaan sheegay maanta nin baa ay weydiiyay waxaan isku dayay inaan ka dhaadhiciyo in dadkan dad baahan oo qaxootiya oo luqadda garanaynin ay yihiin oo wadanka ku cusub oo ka shaqeeya meelo riskigooda iyo dhibaatadooda aad u badan tahay ma aha dad iyagu doontay xanuunkooda raadsaday waa dad ma aragtay dadkii ilaalin lahaa ee mataqaanaa mas'uulka ka ahaa ee shaqooyinka madaxda ka ahaa ay ilaalin waayeen oo ma aragtay diideen inay mataqaanaa ilaaliyaan sababtoo dadka intiisa badan waxa la sheegay iyagoo xanuunku hayo
in nimanka supervisorada oo ay lahaayeen soo gala shaqooyinkii ku qasbayeen ayaa la sheekada ma hubo laakiin waa sheeko Soomaalidu isla dhex marayso oo u baahan in xaqiiqadeeda la raadiyo haddii ay run tahayna waa sheeko loo baahan yahay in Soomaalidu ay daba gasho oo mataqaanaa social media ama mataqaanaa journalada lagu soo qoro oo xataa lawyer la qabsado la daba galo sababtoo hadda waxa laga hadlayaa ilaa 1,000 qof baa laga hadlayaa inay ka shaqeynayeen oo Soomaaliya Spanish badan marka dadka intaa leeg dadka riskiga geliyay ee dhibaatada intaa lagu horseeday waxa weeye in wax laga qabto oo la daba galo oo dadkan la caawiyo oo la garab istaago waa mid muhiima gurubyada Soomaalida ee St. Cloud degan arrinta way ku guda jiraan oo dad badan baa arrinta hormoodka oo teleconference-gii aan yahay jirnay habeenadii ugu dambeeyay waxyaabaha lagaga hadlay waxyaabahaas ka mid ah marka arrintaas waa arrin muhiima inaynu mataqaanaa haddii hal mar sumcadda laynaga xumeeyo oo media la inoo geliyo wax xun sidaan uga soo kabanaynaa waqti bay noogu qaadanaysaa marka hadda proactive inaan noqono oo inagu ma aragtay aan sheekadeena aynu inagu ka hadalno sababtoo adu haddaad narrative-kaaga adoo dad ka hadli weyda sheekadaada oo qof kale kaaga hadlo waxa weeye lagama yaabo in wax wanaagsan kaa sheego mahmaah afrikaana waxay tidhaahdaa ilaa iyo libaaxu u helayo qof u hadla ninka libaaxa dilay hadalkiisan baa la dhegaysan doonaa waxa weeye ilaa inaga Soomaali qof inoo hadla la helo hadalka dadka cadaanka inaga sheegayaan baa la dhegaysanaya marka waxa weeye arrintaasi waa arrin muhiima hadalkana hani baan uga baxayaa waaye kulley dabcan waxaan anigu qiyaasayaa dhaqanka magaaladan iyo haddaan aqaano iyo weliba warshadahan inuu dood badan iyo hadal badan iyo lagaba yaabe dacwado inay ka yimaadaan saameynna waxayna ku xiraan doontaa hadba sida uu bulshadeena u saameeyo waddankanna waan ognahay dadka minority-ga in marar badan si xun loola dhaqmo oo dadka dhaqaalaha iyo haysto ama privilege-ka sida cadaanka ay ula dhaqmaan iyadoo warshadihii badanaa hadda magaaladeena cadaan ku shaqeynaya dhan waa la xiray laakiin waxa furnaaday waxay ahaayeen kuwii dadkeena u badan yihiin markaad fiirisid Soomaalidu waxay u badan yihiin warshadaha hilibka halka warshadihii biraha iyo warshadihii technologies-ki waxa sameynayay iyo kuwii baabuurta iyo magaalada la xiray waxaan rabaa inaan qof qadka telefoonka siiyo Maxamed ku soo dhawow nala wadaag waxaan rabtid inaad bal ka hadashid iyo ama su'aasha aad jeceshahay inaad weydiisid kaahin iyo hani aad u mahadsan tahay Axmed kaahin waa salaamaya hanina waa salaamaya sidoo kale labada marka waxaa la su'aalo loo su'aalo waxa mid hal su'aal hani oo waxa hal su'aalna kaahin waa gartay qofka waxa laga rabaa inuu qandadiisa cabiro qofka marka door cisho qandada qabanin ugu yaraan 3 cisho hadaysan qandada qabanin markii uu dhamaato laakiin 10 cisho uu guriga joogo 3 cisho waa inay qofka qanda qabanin kadib qofka soo fasaxa marka qofka haysan qalab uu qandada ku cabiro xaguu ka heli karaa qalabka qandada lagu cabiro صح okay su'aasha kaahin weydiinayna waxa weeye hal mar aan dhameystirnaya su'aasha kaahin aan weydiinayna waxa weeye qofka covid ku dhacay oo murugta iyo walaac iyo xanuunka dhibaatadiisa wixii ka murga sidoo ku yaraan karaa in xanuunkaas macnaha inuu maskaxdiisa saameyn ku yeelan inuu sameyn karaa ku tacaali karaa waaye aad baad u mahadsantahay waaye dhinaca Facebook ka dhageyso qofka kale oo ku jira qadka asagana aan siiyo su'aasha uu weydiiyo ama commentigiisa u dhaho ka bacdina iyagan ku celin doona hadii la haydmo ku soo assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام يا. سلام الله ولا. أنت جبتها واحد تاي الله ياب كله. إن سنكلاد قلب الدجاج هي اللي بكشغل الشيء إن تذكير بوزيتيفة ولا حقيقية وحنوصل أي شيء كيلو عن رأيني سوء آذان. مركا I think أنت تمركا هيستلك كويسة بروتوكول كوفيد-19 لقلب دجاج لما يو ay qolada dawladda iyo officials ka dhan la group gareeyay inay tahay ku tahay violation ama ay ku tahay meel kaga dhac policy-da la dejiyay sidaa daraadeed haddii ay la sameeyo dabagal oo ay cadaato qof positive in lagu qasbay shaqada in soo gal la dhaho taas waxay noqonaysaa in company-ga markaas lagu sameeyo qolada dawladdu ay markaa ku sameyso
inay shutdown ka dhigto ama ay citation u samayso marka ay markaas ay sayd garayaan aniga maanta baan dhegeysanayay same idaacadda ama idaacado kale nin baa hadlayay wuxuu yidhi positive dadkii oo baa leeyahay shaqada kusoo laabta that's totally unacceptable haddii ay taasi jirto oo ay caddaato ma ahan wax shaqayn kara taas markaan waxaa lahaa kaysaska noocaas ah la dabagalo haddii ay soo caddaatana hala citation lagu sameeyo companiga waana wax caadiya taladaas soo jeedin lahaani waay waa mahadsanta aad baa mahadsanta waay dhinaca su-aalaha intaas ayaanu ku joojin doonaa maadaama aan martidan barnaamijka in muddo ku haynay maadaama idinku aa u shaqaysaan center careka muddo badanaa maxkamadaha ka shaqayn jiray dabcan waxyaalaha sharciga la xidhiidha ama siyaasadda waxaa fiican qof aqoonteeda leh ama ayan hadal uga imaaneyn inuu ka jawaabo waan isku dayi doonaa barnaamijkan in loo yaro iyo dad siyaasiyiin ah hadday noqoto kuwa Minneapolis jooga maadaama elected official St. Cloud uusan joogin inaan barnaamijkan aanu ku casuuna haddii ilaahay idmo ama dad aqoon u leh sharciyada dhinaca shaqaalaha laakiin xaqiiqdii sida wararka dadku ay sheegayaan su'aalaha waxaa ka mid ah qof 2 isbuuc xanuunsanaa oo shumayay oo dabcan shaqada leelahaa imow oo la yiri markii dambe xanuunka waaba kaasii baxaya waxaa ka mid ah sheekooyinka aan maqlay lead person oo 2 cisho shaqada xanuunka ka maqnaan qandho oo lagu soo celiyay oo ahaa qofkii qaybinaysay goloffiska wax badan bay noo sheegeen laakiin mar raba maadaama labadiinaba center careka ka socotaan inaan arintaas sharciga xageeda aan idin weydiino ama aad ka hadashaan hadda waxaan isku dayi doonaa laakiin loo yaro iyo dadka inaan weelo arinta aan rabo hani inuu wiilkan uu ku weydiiyay Maxamed waxay la xiriirtaa arinta oo aan arkay Soomaali badan markay dhakhtarka tago qandha ay qabatay uusan aqoonin qandhada numberkeeda waana ogtahay qofku qandhada waxaa jirta heer uu u dul qaadan karo jirkiisa heer u dul qaadan karin see maxaad kula talin lahayd qof walba inuu helo qalabka qandhada la iskaga cabiro qoys walba oo Soomaaliya inuu guriga u yaalo qalabka qandhada la iskaga cabiro waa su'aasha uu na weydiiyay nambarada la rabo inuu ka taxadaro na waa nambarada ama kaniiniyade bay dadka qaarkood isweydiinayaan adigu ners baataan malaynaa insha Allah iyo ta kale kaahin murugada ka dhalan karta dadkan la yiri qolka isku xir muxuu uga hortagi karaa aan ku hormaro kaahin maadaama codka yara dambeeyo ani ku soco kaahin waa run weeye xanuunkani murugooyin badan ayuu keenay iyo walwal iyo dhibaatooyin badan oo la xiriira maskaxda marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofku inuu ogaado marka hore ay tahay horta waxa weeye waxaan wax ilaahay qadaray oo ilaahay qofka ku keenay talabaad waxa weeye wax qofku keligii ku dhacay maaha oo waa wax ummadoo dhan haysto caama maanta dad badan baa isaga la qabo qofka marka qofku inuu taa ogaado weeye talabaad waxa weeye isolationka iyo qofku inuu meel ku xidhmo waa waxyaabaha ugu xun ilaahay nooma samaynin ibni aadanka ilaahay ma samaynin keligood meel ku xidhnaada saasuu ilaahay xayawaanka iyo wax kastoo noolba laba ugu sameeyey si la isku weheshado marka waxa weeye qofku inuu la xiriiro ehelkiisa iyo asxaabtiisa dadka qaraabadiisa ehelkiisuna la xiriiraan maaha telefoonnay ku wacaan waan qofka FaceTime lagu waco wejigiisa la arko laga qosliyo farxad la geliyo rajo abuur loo sameeyo qofka rajo nolosha rajo laga geliyo sababta dadka inta badan waxyaabaha ku dhaca rajo la'aan baa ku dhacdo qofka istool bidaya hadduu xanuunkani kugu dhaco waad dhimanaysaa xanuunkan dadka dhimanaya ma badna si ahaan marka loo fiiriyo xanuuno badan oo waxaa jira mataqaanaa viruskan lamida oo mataqaanaa dhimashadoodu aada uga sarreyso marka waxa weeye qofka waxaa looga baahan yahay inuu jiifo maaha waa inuu xataa qolka ku jiro inuu dhaqdhaqaaq ku sameeyo oo hadduu tamar ku jimicsan kariyo awood u leeyahay inuu xoogaa ama breathing exercise u neefta isku celiyo uu soo saaro intuu jirkiisa u dejiyo ama mataqaanaa exercise yaroo fudud oo mataqaanaa aan dhibaato u keeni karin inuu qofku sameeyo ayaa fiican haddii uu salaada tukan karo oo mataqaanaa xanuunkiisu u saamaxayo inuu salaada tukan karo oo qur-aanka akhrin karo taa laftigeedu waa waxyaabo muhiima sababta dad badan oo hadda anigii haneen la hadalna waxay sheegeen in qur-aanka iyo salaadu ay aada u caawisay iyo mataqaanaa FaceTime-ka iyo Facebooka intuba ay aada u caawisay kale isku day qofka ma aragtay qolkiisa in haddii xataa laga ilaalin karo wararka aadka u naxrinta badan laga ilaalin karo TV-ga laga ilaalin karo in qofka qolka loo dhigo telefoonka mataqaanaa xariga lagu charge gareeyana in qolka loo dhigo taa laftigeeduna waa muhiim
sababtaa qofkii at least maaragtay suu dadka ula xidhiidho waa arrin muhiima suuna qofkii dadkao dhan uga go-in intaasaan ku dhamaystiri lahaa okay aad baad u mahadsan tahay hana kusoo dhawow arrinta xumadda ama qandhada iyo cabirkeeda iyo talagelyadaada horta dad Soomaali haddaan nahay kuma badnin inaan haysano bahalkan oo thermometer la dhaho maadi maqashaa waa ku maqalnahaa walaal ku soco okay sawirkayga iyo codkayga waa kala yara dambeeya laakiin wax mashaakil ma laha so thermometer bahalka la dhaho ma haysano laakiin qofka markii positive lagu soo sheego ee kuwan public health ka soo wacaan way codsan karaan inay dhahaan thermometer ma hayste maad noo keeni kartiin way u keenayaan thermometerkana wax qaali ahna ma ahan dadka Amazonka ka dalban karaan ama Walgreenka ka dalban karaan ay ka doonan karaan ama Walmart xataa kuwa yaryar jiro I think $5 qaar jiro qaarna dee way sii kala qaalisan yihiin marka aad wacdid kuwan central triage-ka aan dhahno ama call center-ka waxay ku weydiinayaan temperature-kaaga waa maxay qofkii temperature-kiisa hadduusan garanaynin wuxuu dhihi karaa ma haysta thermometer laakiin kuleel badan ayaan dareemayaa laakiin way fiican tahay dadka dhan inay haystaan guriga u taalo thermometer siiba dadka caruurta yaryar leh caruurta qandhaa ku dhici karto xanuunkanna qandhaa la socoto sida ku ogaanaysid inaad qolkaaga quarantiinka uga soo bixi kartidna waa 3 beri isku xigto aada qandho isku arag okay waayahay aad iyo aad ayaad labadiinaba aad u mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gashaan barnaamijkan oo nuga hadlaynay ama wacyigelinta ahaa aan uga hadlaynay xanuunka coronaviruska iyo saameynta uu ku sameeyey bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkan Minnesota gaar ahaan magaalada St. Cloud haddii ilaahay idmo waa sii wadi doonaa in aanu ka hadalno barnaamijyada la xiriira xanuunka coronaviruska iyo saameynta uu ku sameeyey dhammaan bulshada ku dhaqan gobolkan Minnesota gaar ahaan dadka Soomaalida ah barnaamijkayga caawa waxaa iigu marti ahaa Hani Jacobson oo iyadu ka shaqeysa cusbitaalka ama u shaqeysa Center Care oo ah hay-adda ugu weyn ee caafimaadka ee magaalada St. Cloud ayaa barnaamijkayga caawa marti noogu ahayd sidaasoo kalena waxaa barnaamijkayga caawa igala qayb qaadanayay kaahin oo isagu ah therapist bartay cilmiga maskaxda oo isaguna u shaqeeya Center Care-ka oo ah xarumaha caafimaadka ee magaalada St. Cloud oo isaguna arrintan ka hadlayay barnaamijkan oo cod ah waxaad ka dhageysan doontaan idaacadda KZYSLB ee laga dhageysto magaalada St. Cloud waxaanan aad uga xumahay inkastoo muddo bil iyo hadda ka badan aanu ka hadlaynay xanuunkan coronaviruska in uu arrimihii aanu ka baqaynay oo ahayd in uu saameyn weyn uu ku samayn doono bulshadayada Soomaalida in ay arrintii dhacday iyadoo weliba loo eedeynayo inuu xanuunkani uu aad uga fiday warshadaha aan shaqada joojin ee soo saara cuntada sida gaar ahaan kuwa hilibka sida wararku ay hadda u badan yihiin dadka Soomaalida ee xanuunka ku dhacay waxa ay ka soo qaadeen xanuunkaasi warshadaha laga shaqeeyo dadka aan ogeyn magaalada St. Cloud dadkeeda waxaa lagu qiyaasaa 12,000 ama 20 ku dhawaad tirkoobka kulay sanadkan waa lagu ogaan doonaa xaqiiqdii dadka jooga waa magaalada labaad ee gobolkan Minnesota marka laga soo tago magaalooyinka Twin Citieska oo ay ku dhaqan yihiin dadka Soomaalida dadka ku nool hadda waxaa la yiraahdaa waxay u badan yihiin dadkii adiga qaxootiga ahaa ee ka yimid dhinaca Ethiopia ayay u badan yihiin dadka hadda ku dhaqan laakiin bulshada Soomaalida ilaa iyo 19-20 sano magaaladani way degaysay ama way deganeed aniga ayaaba 12 sano kaliya magaaladan degan dadkaasi badidood waxay ka shaqeeyaan warshadaha xamaalka ah sida kuwa hilibka iyo warshadaha kale kuwaas oo nasiib darro la oran karo waxa la oran karaa waa warshadaha sii waday shaqadooda ama kuwa alaabaha diraha noqdaan ama kuwa
hadda cuntada sameeya ha noqdaan. Arrintaasi waxa ay sababtay bulshadii inay qaarkood xanuunka ay ka soo qaadaan ayna kula soo noqdaan qoysaskoodii carruurtoodii, taasoo aanu hadda maqlayno xaasas ama dumar badan iyo carruur badan inuu ku dhacay xanuunkii kadib markii aabe ama hooyo ka shaqaysa warshadaha oo xanuunka usoo gudbiyey. arrinta kale oo aad bulshada Soomaalida hadda uga hadlaysa waxa weeye in dad si qayrul mas'uulnimo ah xanuunka lagu sheegay ama xanuunka qaba si aan taxadar lahayn ay bulshada dhexdeeda xanuunka intay u qarsadaan, dadkii u salaamayaan ama dadkii ay ula hadlayaan ama ay u dhex istaagayaan ama aanan iskarantiilayn. arrintaasna waxa ay dadku leeyihiin dhibaatadu waa meelaha ka imanayso. dukaamada Soomaalida iyo maqaayadahayaba iyagu naftigooda waxaa loo baahan yahay taxadar dheeraad ah oo xagga nadaafadda ah in ay sameeyaan. so far ma aanan maqal inkastoo numberka cirka uu isku shareeray sida lagu qoray jaraa'idada localka ah iyo kuwa nationalka ah, laakiin waxaa laga baqayaa inuu aad u kordho numberka dadka Soomaalida xanuunka qaba. qaarkoodna dadku waxay ku tuhmayaan in uu kumanaan uu gaari doono magaalada St. Cloud, maadaama warshadaha aanu ka hadlayno qaarkood dadka ka shaqeeya ay ahaayeen 2,000 ka shaqeeya. bal waa arki doonaa sida uu u saameeyo, laakiin bulshada Soomaalida ah iyo dhammaan dadka idaacadda ama barnaamijyadan ku xiran waxaanu ka wacyigelinaynaa in ay ka taxadaraan waxyaalaha khatarta u keensan kara caafimaadkooda ama iyaga ama qoyskooda haddii la haydmo. sidaasoo kale barnaamijyadan si joogta ah ayaan u qaban doonaa si ay dadka Soomaalida nagala soo qayb qaataan oo wixii talageliya ah iyo wacyigelinba loo sameeyo. waxaana jira dad kala duwan hadday ahaato dhinaca culimada, dhinaca bulshada magaalada, ururo kala duwan inay iyagu naftigooda nin walba qolo dhinaciisa iskaga dayayo in ay arrintan looga hortago. waxaana kula talin lahaa in bulshada ay u baahan tahay sid midnimo ah in arrintan loo wajaho, maadaama aan ognahay xanuunkan qatar inuu yahay, dilaa inuu yahay. wadamo badan sida Ingiriiska, hadda Soomaaliya dad badan oo Soomaaliyeed ay ku dhimanayaan. magaaladan St. Cloudna hadda la leeyahay waxay noqotay meesha hogaaminaysaba xanuunkan. marka aad iyo aad baan uga mahad celinayaa mar kale Hani iyo Kaahin oo barnaamijkayga nagala soo qayb qaatay. maantaba labadiinaba aad baan idinku mahad celinayaa. insha Allah barnaamijkayga intaasaan ku soo afmeeraynaa. intaan ku kulmi doono barnaamijkan ku xigo waa aniga Axmed Laariya, Hani iyo Kaahin ba waxaan idin leenahay sidaas iyo salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. matayo anata mailao jacaylod rogan maayo onila bin maayo ayro weeran matayo ilen aamusi maayo ergogeesi madiide arnataha madayo anata mailao jacaylod rogan maayo onila bin maayo ayro weeran matayo ilen aamusi maayo ergogeesi madiide ilahtiisu ma oosho calaf layskama ooto ubax dayr ma qarsoomo godka layskuma aayo ilahtiisu ma oosho calaf layskama ooto ubax dayr ma qarsoomo godka laysuma aayo
layskama baaje nafsihayga amaahan axdigeena dhexyeeliyo ha iloobin aqoonte ifka laysku turaaye ilka laysma gargaaro abor layskama baaje nafsihayga amaahan axdigeena dhexyeeliyo ha iloobin aqoonte ilaskeeda cadceeda amantaada libaaxa malawaanad ogayne ayaduurkiya maanka wadnahayga agtiisa sida aayad ku taalaan umiyaa u tusaaye ilaskeeda cadceeda amantaada libaaxa malawaanad ogayne ayaduurkiya maanka wadnahayga agtiisa sida aayad ku taalaan umiyaa u tusaaye haddii aanu iblaysku iga kaa ambinaynin inadii turi waydo eegi maayo kolay